gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay xogayaha cusub ee waxbarashada ee xisbiga ucid Cabdicasiis Qaasim Xuseen kaas oo ay soo agaasimeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Maroodijeex ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka dhalinyarada gobolka Maroodijeex ee munaasabadani qabtay xalfada waxanaqa mudane professor aqooyahan mudane Cabdicasiis Qaasim Xuseen Dalma oo gudoomiyuhu u magacaabay xogayaha waxbarashada ee xisbiga ucid bishii 2022 waxaan ogahay in xisbiga ucid uu yahay xisbiga rajada shacabka rajada dhalinyarada Soomaaliland waxaan aaminsanahay oo qiraya shakhsiyan mid guud iyo mid kalaba in gudoomiye Faysal oo u qalmo masirka Soomaaliland yahayna gudoomiyada ugu horeyn waxaan hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub musharraf loo magacaabay gudoomiyaha barashada taasoo aasaas u ah dhammaan nolosha bini'aadamka waxbarashada markaynu eegayno aad iyo aad baan u hambalyeeynaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ucud Soomaalidu waxay tiraahdaa nixil qaadi eed qaad xilka Allah kula garab galo Allahna ha kula qabto midkii ka soo baxana Allah ka dhigo xaggan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa macalinkaygii sharafkaasi moo leeyahay hambaliyo kuusaad gaadhay waan kugu hambaliyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay garabkaaga ayaan taaganahay sidoo kale xaggan waxaan ka salaamayaa isaguna gudoomiyahaas oo leenahay sidoo kale soo dhawow kale haddaanu nahay dhalinyar noo soo kacaysa waxaanu macalinkayga u dooranayaa si uu mar labaad maxay aqoontiisa u sii kordhiyo una sii rabalaariyo anaguna aanu bartaa kaga sii deeano kaga sii hanaqaano aad iyo aad u soo dhawow baan ku leenahay macalin hambaliyo horta markaa musharraf way ogtahay wax bahda waxbarashadu kaalinta ku jiro waa la og yahay waxa waddanka soo kordhiyay waayo qofku horta intaan isagu horta intaan adiga wax ku qabso inuu soo qabtaa fiican kulli musharraf waa nin magaalada Hargeysa ku soo kordhiyay language-ka iyo cilmiga casriga computeriska muddo badan ku soo dhex jiray muddo badan dhigayay kale dhalinyar badan oo halka lagu soo koobi karin ba ka faa'iideystay baan oran karaa kuleediisa kulli waa nin dhalinyarta wax gashaday marka insha Allah inaguna markii na gashay inuu abaal ku celino waa mid uu nagu leeyahay waajiba insha Allah taasina diyaar bay naga tahay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga ucid waxaanay bogaadiyeen xogayaha cusub ee waxbarashada Cabdicasiis Qaasim Xuseen ku soo biirta xisbiga ee uu professor musharraf hogaaminayo xogayaha waxbarashada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaad ku soo biirteen xisbigii aabaha xisbiyada jamhuuriyadda Soomaaliland halkii musharraf waxa loo doortay inuu noqdo xogayaha waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa kaalin uu ka soo bixi karayo oo uu buuxin karayo oo aanan uga baqa qabin musharraf ahaantiisa waayo anigoo og experience-ka iyo aqoonta uu leeyahay waxbarashada iyo aasaaskii waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta lixaad kale uga soo qaatay shalay ardaydii iskuulka noo dhiganaysay waa la soo yeeray waxa la yiri 3 bilood haddaydan soo qadimin shanaad lixaad toddobaad imtixaan ma galaysaa taasina waa xaq darro waayo arday fasax galayso la yiri soo qadima 3 bilood maqantiin oo waxa aad loola yaabo waxaan dilaahay gudoomiyaha inuu hadii uu xilka ku guuleystay xisbiga ucid inaad wax badan ka qaban doontaan insha Allah billahi kariim xisbiga inuu ka guuleystaa noqdo xukuumadana waxaan ugu baaqaynaa maaha waxa la isku haystaa dad iyo daara la isku haysta waxa la isku haysta waa sharci xukuumadda sharciga ku soo noqoto ilaahay xaqaa garsiiyo aan idin salaamaya waji wacan qalbi furan quluub wacan ayaan idinku soo dhawaynaynaa haddaanu nahay xisbiga ucid horena idinku haynay idinkuna haynaa ku soo dhawaada gurigayaga qalbigayaga xisbiga dhammaan Soomaaliland Cabdicasiis macalinkeena waan hambalyeynaya markuu horeysa
xilka loo dhiibay in yar baan isnaqaanay waa nin mudakara waa nin wax soo kordhin kara waa nin khibrad leh annaguna aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay xisbiga ucid waxaa la isku hayaa maalmahan doorasho 13 Noofembar iyo 26 Disembar keeba soo horeeya haddii aan ka soo jeedo xagga kulmiye muraayad bay xidhan yihiin u qallibaysa oo la yidhaha mirror view marka waxaa soo horeynaysaa Disembar baa soo horeynaysaa ya reality-gana da kuma xidhna moogti laakiin 13 Noofembar ayaa soo horeysa xogayaha cusub ee waxbarashada ee xisbiga ucid Cabdicasiis Qaasim Xuseen oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu eedo u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada gobolka Maroodijeex ee xafladan ii qabatay iyo intii ka soo qayb gashayba waan ku mahadsantiin dhammaantiinba waxaan anigoo xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda indagoo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda waxaan isku haynaa bulshooy salaada casir iyo tan maqrib teebaa soo horeyso haddaba bulshooy idinkaan idin weydiiyee ma tan maqrib baynu hor tukunnaa mise tan casir muhiimaddu waa intaa murkaa maanta doorashada laydii sheegay dowladdu waxay leedahay tan maqrib ha la soo horreysiyo tukan tan casirna dib aynu u dhigan muu caqliga galaa that's the reality wax kaloo isku hayna haba yaraatee ma jirto haddaba waxaa intaa haddaan xisbiyada mucaaradka nahay waxaan leenahay salaada casar ha la tukan dabeed tan maqribna waqtigeedaan tukan haddii sida kale aan u dhignana bisha November iyo bisha December sanadka teebaa soo horeysa November baa soo horeysa doorashada madaxweynaha xilligiisa waxay kaga eg tahay November xisbiyadana liisakooda waxay kaga eg tahay December waxaan isku haynaa wax kale mee November baa soo horeysay madaxweynaadu ay ka dhamaatay waqtigaadii doorashada madaxweynimada qaba dabeed December marka la gaaro tan xisbiyada hal la qabta kan soo bax markaa dawladdu waxay leedahay sanadkan December la soo horeysiyo November hal la dambeeyay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad taageerto muusheen ninka dhalinyarta ah Cabdicasiis Qaasim ee u magacawnay xogayaha waxbarashada waxa weeye haddaan u cudnahay anagu waxaan nidhi dalkan markaan eegay aan eegnay waxaanu aragnay dhibaatada haysta ee tahay aqoon darro haddaad markaa aragtid wasaaradaheena wasiir ilaa DG ilaa head of department wax meesha aqoonteedii leh oo jooga ma jiro qabyaalad baa loo dhigay in la reer hebelo DG baa leeyahay iyo wasiir baa leeyahay laakiin looma dhigay inuu wax qabto taas waa ta keentay inuu dalkeenu maanta aynu siyaasad waxbarasho lahayn mid biyaha lahayn mid deegaan lahayn mid magaranaysa caafimaad lahayn si waxaan doonaynaa maadaama anaga daadii nagu xigtay ay ku dhamaadeen dagaalkii xoreynta qaranka qaarna carabta u dhoofeen markii cadaadiska arkeen in iskuulada laga saaray inaan dhalinyaro dan aanu soo saarno new generation of leadership imaka warkaasoo halkan waxay iga xiga Cabdisalaam engineer oo waa xogayaha biyaha ayaa weeye ayaa noqon insha Allah taala kana waa tacliintii dhalinyartaas anagu maanu soo recycle ma sameynayno أنا وحقي قدامي وحقيقة
isna shanta gudoomiye xigeen oo mid gabar tahay ayaa ku weyn anagu shalay wasiirka kulmiye oo hadda kulmiyadii dambe meel ka waayay oo mucaaradkan gelaya dee ma qaabilin maxaan ugu qaab waan naqanaa wasiir buu ahay wuxuu qabtay dee rikoorkiisii baa la hayaa laakiin waxaan doonayaa dhalinyartiina aan dhiiri gelino aan jecelnahay inaad ka leexataan wadadii lagu jabay wadda lagu jabay laguma noqdo waa qabyaalad maxamed mir qorsame Ariel TV Hargeysa